ميانا اسمعين ولا عبد غني. السلام عليكم. وعليكم السلام ولا لي ور وان في عنا ولا سيتها. الحمد لله يا ساتر ما شاء الله سودو ولا وقرمتي ولا يندويد باني مداي هاي ما اوغيني waxaan doonayaa inaan dalka u soo raro xaafadii dhamaantoodan xagan keeno oo guri xagan ka dhisto laakiin waaban waayeyba macnaha shirkad aan ku qanco oo dhismaha ahaa san u raadinay waaban daalay wax masleem iska badaysaaba oo walaal heedhe hee ma dhisaynkaad saluugtay ma dhismahaad saluugtay ma guryaha lagu tusay baad saluugtay waxoo dhanba walaal waan saluugayo wax iqanciyaba waan waayo waxaan sleebay imka iska noqotaa هنقون ولا عليه أنا حلكم هيا ومحو يا حلكم مصور مرتي شركة دا نشقدين تا اسمها إدل صور ما أعرف والشركة قريها يدستو قريها نشقديسو قاب كيو استو عاد كوكن عسيدو عن هو وما يقهبتا أنا قاهبا أو يقري يدستا gurigeygana waa ku tusi nashqadaha iyo qaabka ay u sameeysan iyaga ku tusi shirkadda xafiiskaad ugu tag ma garatay haye dayada soo igi taabad noqon diyaar kaalimkeyga ina mari oo shirkad laan baa ku dili gaadhay ina mari oo xagee ku taala laakiin waxa dhinaca galbeed ka soo eegaysaa masaajidka Ibrahim Dheere ma taagan tahay ha dhinaca galbeed oo eeg waa diyaar ina mari wadada suuqa waxay kugu dhow yahay waa suuqi ma sha Allah السلام عليكم عليكم السلام kusoo dhawaada shirkadda nashqadaha dhismaha iyo dhisidda guryaha Dalsoor Architect and Construction Company. waa dhow walaal soo fadhiisto soo dhawaada guriga waxaan u sameynay habkay nashqadu ahayd ilaahay baa inagu asturay ما شاء الله ما شاء war الله walaal wad baasanta kowdi shirkadda dalsoorna anaa horta markii hore inanta u soo tilmaamay shukran anigoo garasooday guriga dhisay si wanaagsan marka dalsoor waxaan ku wuri amaanada iyo degdegsiinta iyo nashqada iyo waliba ballanta shirkadaha qaar baa iska oranaya xilligaas aan ku dhameynaayo sanad iska qaata marka dalsoor anigu waxaan ku doortay ilaahay baa inagu asturay wad maasantiinaadan aad shukran aad badan ma santaa walaal thank you walaal marar badan isu soo noqon war guryaha badanayna ya walaal ay insha Allah ay ay walaal aad baan ugu farxay